waa galab kale iyo kulan kale waa ciyaar kale iyo horyaalka Soomaaliya daawadayaal meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan tabinta kulanka weyn ee xiisaha leh kaas oo u dhaxeeya kooxaha Elman iyo sidoo kale dekadaha Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Aveme Shafiq ciyaartu way bilaabatay kooxda dekadaha ayaana sameysay baaska qaybta koobaad ee ciyaarta isagana waxa uu ka mid yahay saaxiibada sida tooska ula socda ciyaartan جامع فورو محمد وحو قولوا رجانا كوحد المان حساسي ديمون اساقنا وحو صغري نجيب وانكو سلامي وانكا هذا صاحب بلا علم واليه انجي السيا وجرتي شبغوا الى الليو قول هيا كوحدكو بدعكتي دكذا ديري عبدو غادر ديري وحياتكو بد مصافو وجرتي شبغوا الى الليو سوبرستاركا كوحد دكذا وحياتكو بد هوغن تاسو لوكتي سميدقو واديك سدي وصوبا ساوه ميكل منزا مالكي اكو هيالا العياري اكو مالكي حردا يوصودغي دادر حسن عاشوا لا سو ساري رجادا يا غاتي رجادا يا حكمي رجادا يا دولك دغي حسن عثمان بنا كلا صودغي مالكي اكو الله وحيهتكو بد عجيبه حندابك لو دhisay حركاتك لو ابابولي حكمه لو كروسي iyo sidoo kale qaabka loo gooyay waxay hayeen wax dilay difaac lambarka 24aad ee kooxda Elman laacibka lagu magacaabo Xasan Maxamed Ismaan iyo kubadaha aragtida ku dhisan hel kabitaano Abbas Samin waxay ka dhigaysaa wax u qurux badan dhinacooda waxay ka dhigaysaa wax ay ku sii dhaqaaqaan wala soo karoosay hasaatee garsoorku markan waxa uu dhigay qalad foul kaasoo keenay dhaawac iyo in waxda caafimaadka ay soo gaaraan xerada ganaax iyo barta dhaawac ay ka sheeganayaan ciyaartoodan waxay ka fikirayaan xaaladda kubaddan ee hor istaagi laayeen xilli uu la hadlayo golayooda Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac kaasoo lahaa sababta kubaddani waa isku taagtaagay kubaddu Rafael Adade Rafael garsoorku mar kale waxa uu tilmaamayaa in bulusku ay soo tuuran doonto kooxda dekadaha kuwaasoo dhammaantooda xeyndaabka kubaddani ku xarakeysan مالكاكو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مالكاكو وحكستي حوارسو وحكستي دغاغلو وحكستو دربيو مالكاكو هيا توكتي شبغ قول يا عبد الرحمن محمود جامع يسلو كلا كوخدا جالا ياشا بلان داوانو وحي قبصدي زون كبراركا بلان مليسانو وانا قول يبر كوحدة كبدا عكتي دكذا يكو قامنيسو مالك ياكوا اياسر اللي يقول كغوري قلبتن ايا من هدي نغطو نور يراد عبد الله واهلس هدي نغطو نور توتو ايو سلمي ذا نور توتو با دير هياك الدنبي كبدي حوقن ايضا ودربي نور ابراهيم علي نور توتو الله محي سعوني ساعيار حيسله الله محو سعوني كلون دافي ayaa darbeeyay kubada halisa kadib markii xaalad halisa loo dhigay kooxda kubada cagtay Elman waa uu talaabsaday waa uu taagsaday waxa soo toogtay shabaqa balse gacan midig ayuu isaga saaray golaya dheere Cabduqaadir dheere koor intuu sanel kabitaano Abbas Samin mar kale waa kooxda Elman markan waa bila cilmi weheliye garabka ayuu soo dhigay bila Abdul Wali ayaa soo daafacay محمد محمود جلة يا كوبا هستا مركن محمد جلة نور يراد عبد الله نور وحا كوداعي داود عبد الله تبال كاسو كوبا بربري غطر لاتسو كوحدة كوبا داعيك تيرمن أفيما شافخ أي عيارتك يا جول أفيما وحو سونو ليرجدي كوحدة هلمن أفيما وحو سونو ليريدي توبر مراد عبد القادر محمود نور يراد عبد الله يا لو داعي داود يا بربري محمد جيلا يا سو قاداي waxa sadamaystira Avema Shafiq lambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta Elman Osman Salaad Abdi Osman oo ka jawaab laga soo qaado kubadda markan Rafael Adade Rafael garabka ay u soo dhigay Rijado Luzo Rijad ka soo face to face ku wajahay bile Rijado Luzo Rijado laacibka lagu magacaabo Daadir Xasan Xaashi Jalla waana waxa keenay foulka in loo dhigo kooxda kubadda cagta ee dekada Malik Yakwa markala banaanka ayuu ka soo darbeeyay koor intuu sarraacsan Daadir Xasan Xaashi Daadir Jalla داود عبد الله تبال
way ka dheeraatay ciyaaryahanka lagu magacaabo daawud cabdullaahi tubaal baaskaas ayaan ahaa baaskii guud ahaan ugu dambeeyey 45 daqiiqo qaybta koobaad ee ciyaarta ugu horeysa muxiidiin aweys difaacii midig ee kooxdan ayaa laga saaray kaasoo qaybtii koobaad kooxda kubadda cagta elman iyo sidoo kale ciyaartoodooda ka hor imaanayey sidaas darteed cabdirasaaq ayaa beddelkiisa ku soo galay ciyaarta cumar cabduqaadir cartan kaasoo ah in seeriga uu ka dhawaajiyo si uu darbeeyo kubaddani maxamuud waa u soo kroosay daadir xasan xaashi jalla ayaa kubaddaas soo saaray cusmaan salaad cabdi ayaa ku soo xiray xerada ganaaxa xasan ayaa sii baasay afame shaafikh mar kale iyo mar kale waa la soo kroosay markan way soo saareen xidigaha kooxda kubadda cagta elman afame shaafikh waa u baasa afame garabka ayaa loo soo dhigay kooxda kubadda cagta elman xamza xasan warsame 1-2 xamza si qurux badan awow jamaal banaanka laga soo darbeeyo waxaasee kaada banaanka ciyaartooyda kooxda kubadda cagta elman idris amiin ayaa kubadda u taagan markan kaasi oo kubaddani soo ciyaari doona idris daadir xasan xaashi daadir jalla ayaa kubaddaasi bundeeyey rijaad oo loo soo rijaad dekada ayaa la wareegtay rafael adaade rafael 1 rafael 2 rafael cross rafael qatar way soo saareen ciyaartooyda kooxda elman rafael adaade ayaa bundeeyey rijaad oo loo soo rijaad mar kale dekadaha difaacida kooxda kubadda cagta elman markan sawa elman afame shaafikh 2 ciyaartooy 3 ciyaartooy 4 ciyaartooy weli afame bidix afame shaafikh waa badbaashay golaya dheere cabduqaadir dheere waa wada jirkii rafael adaade rafael catoosh iyo sidoo kale maalinkia kuwa kaasoo goor hore bulus halisa nuucan oo kale ka dhaliyey catoosh mar kale weerar xamza xasan warsame garabkuu soo dhiga xamza afame shaafikh crosso 8 daqiiqo dheer ayaa ciyaarta lagu daray kadib markii 90 daqiiqo ciyaarta loogu talagalay soo idlaatay jamaal waa u soo baasay ciyaaryahanka lagu magacaabo jamaal cabdifitaax cabdishakuur aawow jamaal super jamaal maxamuud maxamed cali banaanka la soo dhigay gool elman gool xamza xasan warsame eltire gool kooxda muraad waqti dambe ayaa loogu shuba kooxda dekadaha wax kastoo la dhedheelo wax kastoo la wada ciyaaro wax kastoo la isweeraro wax kastoo duulaan garbahay sameeyaan ciyaartooydu elman ayaa ugu dambeyn gool dhalisay waqtigii dhimashada ee ciyaarta elman ayaa gool dhalisay 8 daqiiqo ee dheeriga ahayd tani waxay u tahay 8 daqiiqo habaara kooxda kubadda cagta ee dekadaha tani waxay u tahay 8 daqiiqo si waali ah u ciyaarta kooxda elman xagal qurux badan ayuu ka helay xeyndaab qurux badan ayuu ku abaabulay si xarakeysan ayuu dulluga shabaqa kooxda kubadda cagta elman magaciisa oo dhammaystiran waa xamza xasan warsame waa hal abuura markay tahay maalintiisa midigtiisa gool ku dhalinaya waa hal abuura markay tahay galabtiisa goolhayo walba fajac kala kulmayo garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyey guud ahaan ciyaartu waxay ku soo idlaatay daawadayaal saaxiibayaal elman 2 dekadaha gool